قروحو هرمرا شقلا هرمودك أجر لي مركي تعا هجنوجو هادان هوشيتنا هجو هجنوجو هادان هوشيتنا أنا كو هلا أفكا أشارة وزارة هال كنت أبركو قادنا أي مدة أفرت عشاء واحد من العلم والله أنا متشهدين إنه أقاسمياشي أقاسمي كحياندي يشغاله حياة الشغالها مدة أفرت عشاءها هل كان تابرك نقصيني وحن كلام نق بلارن عليا أقاسمياشي وحياة هي قيمها HR هذا كسو قيب قالي مدة أفرت عشاء هاي محوها workshop كان دبلو جاي محوها براعيها شغالها الدولة بوجن runtii wixii aanu filanaynay iyo wax ka ballaaran ba waanu gaadhnay waanu ka gaadhnay workshopkan haddaan u soo gudada dhaadhaco saddex tubduc oo aad iyo aad muhiim ah ayaanu ku baranay faa'iido badan oo leh saddexda tubduc oo kala ahaa recruitment-kii performance-gii iyo code of conduct-gii run ahaantii waxay noo soo kordhay waxyaabo badan oo inaga maqnaa sababtoo ah dadku markay discussion sameeyaan waxa ka soo baxda faa'iido aan hore loo haynin qof walba wax buu soo kordhinaya kana wax buu ka faa'iidaya marka waa wax aad iyo aad loogu farxo in la sii xoojiyana aad bay u qurux badan tahay awalan waxaan aad ugu mahad celinayaa dhammaan xubnaha ra'iisul wasaaraha iyo tababarka ka qayb galay ee ka socda wasaaradaha iyo hay'adaha madaxa bannaan ee dawladda dhammaantood waxaan si qiimo loo milgal ugu mahad celinayaa professor Eid oo runtii isaguna juhdi iyo dadaal badan geliyay waxaan u mahad celinayaa madaxda mashruuca dib u habeynta shaqaalaha ee World Bank ee agaasimo waaxyada hay'adda shaqaalaha dawladda ee halkan joogay ee hawsha la daadihinayay Eid waxaynu ognahay ahmiyadda ay leedahay inaynu shaqaalaha guud ee qaranka tayeyno si togan aqoontoodii iyo sulukiyaadkooda kalaba u dhisno qaybun bay ka tahay tani inaynu gacmaha isu qabsano sidii aynu u heli lahayn in qarankeenu adeeg wanaagsan helo ilaa aynu shaqaalaha iyo xuduudda shaqaalaha dhisnana oo ka bilaabmaysa waaxyaha xuduudda shaqaalaha oo aynu nidaam dadka u siman yahayn oo habraacyada sharciga dhaqan gelinana waxa hubaala inaanan helahayn sidaynu u doonayno in mustaqbalka ubadkeena iyo jiilka ku sii xiga ay helaan adeeg wanaagsan oo ka mid noqdaan wadamada horumaray tababarada waaxda xuduudda shaqaalaha culays badan baa haysta waan ogahay wax waa fududaynay oo admin finance-da in la isku bedelo iyo in la idinka hoos saaraaba qayb waxay ka ahayd in culayska iyo pressure-ka idinku dhacaya la idinka kor qaado tallaabooyinka aanu ku fududaynay ka mid ahayd waxaanu ciyaar iyo xiisuun iska jeclaanay ma ahayn taa horta waa in ogaataan waa mid talabaadna waxa weeye wax badan baa idin dhiman waa run tababarkani kii horeeyay maaha biinni waaxid ahad kii u dambeeyana noqon maayo hadday gudatay iyo hadday dabadda waxaan doonaynaa inaan kaga maarano maxadkeena shaqaalaha waxaanu ku wadnaa redesigning inaanu curriculumkiisa dib u eegno oonu master's degree gaadhsiino inay bilaabanto bilaha May hadday ugu soo horeyso bacda Ramadaanna waa suurtagal wixii aynu kaga maarmayno maxadkeena ee tababar iyo aqoon iyo kororsiinyo tayeenta aqoonta aynu kaga maarmayna wixii aynu ka maarmayno waa ka tashanaynaayoo wixii awood inoo saamaxdo wadamo badan baan xiriir leenahay maxadka Uganda kamida Gimbaha Ghana kamida oo nala habeynaya maxadka shaqaalaha doo heshiis aanu galay maka ka civil servant university-ga waxa kamida Ethiopia experience tour baa la sameyn karayaa xitaa waa idin fakiraynaa wixii suurtagal ah ee awood inoo saamaxdo ee la haysta mashruuca wixii loogu tala galay waa idin fakiraynaa waana isku dayaynaa wax kala qabano si aanu helo laakiin shay waa muhiim labada hawlood ee maanta tababarka ku qaadateen ee ah sida shaqaalaha loo soo qorayo iyo performance-ka iyo code-ka waa saddexda ugu mudan inaynu tayeyno shaqaalaha hadday tay shaqaale la anshax maranayo waa in code-kii shaqeeyo gudidii anshaxu shaqeyso hadday tahay shaqaale la abaal marinayo loo sameynayo in la dalacsiiyo ama loo sameynayo demotion hoos loo dhigo ama loo sameynayo abaalmarin la siiyo ama agaasimo waaxeed laga dhigo
iyadana waa inay timaado qiimayntii oo ku timid si cadaalad ah qaran wuxuu horumaraa shaqaalaha hormuudkii hagarli'i markay tacaa